Wiil dhalinyaro ah oo wanaagsanaa ayaa waxa uu caado ka yeeshay in bil walba aakhirkeeda uu gaarigiisa qaybta dambe ka soo buuxiyo kartoomo ay ka buuxaan macmacaanka, jukuleedka ama shukulaatada mideeda ugu macaan uguna qaalisan. Waxa uuna gaarigiisa u soo kaxaysan jiray guri ay ku nool yihiin dad fuqara ah oo masaafo ahaan u jirta gurigiisa saacad barkeed. Waxa ay daris ahaayeen nin taajir ah oo haddana bakhiil ah. Ninkan bakhiilka ah bil walba waxa uu fiiriyaa waxa uu sameynayo ninkan. Maalin maalmaha ka mid ah, sidii caadada ahayd, asaga oo gaarigiisa ka soo buuxsaday macmacaanka ayaa waxa uu imaaday ninkii bakhiilka ahaa asaga oo dhoola cadeynaya. Waxa uuna ku yiri, "Xagee ayaad u wadaa shukulaatooyinkan aadka u macaan? Waxaan arkaa qaab ahaan inay yihiin kuwa ugu qaalisan shukulaatooyinka uguna macaan." Ninkii waa uu dhoola cadeeyay. Waxa uuna u soo bandhigay ninkii deriskiisa ahaa in uu raaco si uu u soo arko meesha uu aadayo iyo sababta. Ninkii waa uu ku raacay. Waxa uuna ka tegay gaarigiisa. Waxa uuna raacay gaarigii ninkii wanaagsanaa. Intii ay ku jireen socodkoodii, ninkii wanaagsanaa waxa uu bilaabay akhrinta Qur'aanka Kariimka cod aad u macaan. Ma uuna joojinin akhrinta Qur'aanka ilaa uu ka gaaro meeshii ay u socdeen. Ninkii wanaagsanaa waxa uu ka codsaday ninkii deriskiisa ahaa in uu la qaado kartoomada ay ku jiraan shukulaatooyinka. Kadib waxa uu garaacay mid ka mid ah albaabadii dadkii fuqarada ahaa, waxaana ka furay wiil saqiir ah. Markii uu arkay, waxa uu la qeyliyay farxad. Waxa uuna ku dhahay hooyadiis iyo walaalihiis, "Waxaa imaaday adeerkii wanaagsanaa asagoo inoo sida shukulaato." Kadib waxa uu garaacay albaab kale. Waxaa ka furtay haweeney waayeel ah. Markii ay aragtay adeegii uu waday, waa ay ka qaadatay. Waa ayna u duceysay. Waxayna Alle uga barisay in uu siiyo caafimaad iyo inuu Alle ku toosiyo wada wanaagsan iyo inuu Alle siiyo timaarta jannada sida uu iyaga u siiyay wax wanaagsan. Ninkii wanaagsanaa iyo ninkii ay deriska ahaayeen waxa ay sii wateen hawshoodii qaybinta ahayd. Waxayna si siman u gaarsiiyeen dhammaan xaafadihii dadka fuqarada ahaa. Markii ay qaybintii dhameeyeen, ninkii wanaagsanaa waxa uu galay gaarigiisa asiga iyo ninkii ay deriska ahaayeen. Ninkii bakhiilka ahaa waxa uu weydiiyay ninkii wanaagsanaa asaga oo yaaban sababta uu doortay in xaafadan kaliya uu si khaas ah u abbaaro iyadoo ay jiraan xaafado kale oo badan. Sidoo kale waxa uu weydiiyay sababta uu u doortay inuu u qaybiyo shukulaato asagoo awooda inuu u qaybiyo lacag ama wax kale oo ka wanaagsan shukulaatada. Ninkii waa uu dhoola cadeeyay. Waxa uuna ku dhahay ninkii deriskiisa ahaa, "Xaafadani waa xaafad aan ku noolaa markii aan yaraa anigoo agoon ah haddana faqiir ah. Dadka xaafadan deganna ayagoo fuqara ahaa ayay haddana ii naxariisan jireen. Waxayna i sii jireen shukulaato aan jeclaa, taas oo weli dhadhankeedu aan ka dareemayo afkayga. Markii aan weynaaday oo Alle uu i siiyay maal, waxaan jeclaystay in aan ku celiyo qayb ka mid ah abaalkii ay ii galeen. Haddii aan kaaga jawaabo su'aashaada labaad, fur mid ka mid ah kartoomada." Ninkii waxa uu furay kartoonkii. Waxa uuna ku arkay xogaa lacag ah. Arrinkani ninkii deriska ahaa waxa uu ku sii siyaadiyay yaabkii. Waxa uuna weydiiyay, "Maxaad u siin weysay lacagta oo keliya ama shukulaato ka raqiisan midan?" Ninkii wanaagsanaa waxa uu ku jawaabay asagoo qoslaya, "Waxaan lacagta u geliyaa gudaha kartoonka
ay ku jirto shukulaatada anigoo ilaalinaya dareenkooda. Haddii aan lacagta ku siiyo gacanta, waxa ay dareemayaan xishood. Haddii aan ka hadlo xagga shukulaatadan aniga aad ayaan u jeclahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxa uu yidhi, liibaan ma gaaraysaan ilaa aad bixisaan waxa aad jeceshihiin. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ninkii deriska ahaa kama uusan suulin inuu su'aal weydiiyo ninkii wanaagsanaa. Ninkanna mar walba waxa uu ugu jawaabayay su'aal walba. Si kadis ah waxaa ka soo horbaxay gaari weyn. Gaarigaas waxa uu ka soo baxay sayidkiisa, waxa uuna si qaldan u soo galay sayidkooda. Daqiiqadii ugu dambeysay ayaa ninkii wanaagsanaa waxa uu ka leexiyay gaarigii. Ninkii wanaagsanaa waa uu dhoola cadeeyay, waxa uuna ninkii deriskiisa ahaa u sheegay in uu Alle ku badbaadiyay ducada dadkii saboolka ahaa ee qalbiyada wanaagsanaa. Ninkii deriska ahaa waa uu ilmeeyay, waxa uuna ku dhahay, sidoo kale waxaana badbaadiyay naxariista aad u samaysay dadka masaakiinta ah. Laga bilaabo maanta, bil walba qayb ka mid ah maalkayga waxaan wax ka sii doonaa dadka u baahan. Waxaa laga yaabaa in Alle uu aniga iyo qoyskayga inaga badbaadiyo dhib inagu soo socday, ama uu naga kor yeelo xanuun ama muruga ina haysata. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.